بروفيسور صالح سؤال كويدينا waxa sidee u aragtaa dhacdooyinka ugu dambeeyay oo caruurta lagu laayay magaalada Muqdisho walaalkayow dhacdooyinkan u dambeeyay hadimada ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa mid nagu reebtay murugo iyo arami wada socda oo hadal daa oo aan laga mansoon kareynin oo aan af Soomaali iyo af kaleba oo lagu cabiro oo lagaga ciilbeelo aan garanayno waa hadimo habaar raagay ah oo cirka Ilaahay inaga soo diray amba uu shaydaanku soo diray oo dadkeenii galaafanay arinta ka dhacday Muqdisho waxay aad iyo aad u salsaleebtaa masaajid weyn oo dadkii ku tukanayay ku dumay oo ku soo daatay waxay aad iyo aad u salsaleebtaa halka uu quraanka galiilku kaga mahmaahayay dadka Ilaahay raaca wuxuu ka soo saaraa adoontiisa Ilaahay mugdiga oo wuxuu soo saaraa iftiinka dadka shaydaanka daba galana wuxuu ka soo saaraa iftiinka oo wuxuu u soo horseedaa oo soo gaarsiiya gudcurka iyo mugdiga dadkan aynu arkayno caruurta leeynaya ee aqoonta leeynaya ee kuwii hore ee wax bartay laayay kuwa hadda inay wax barasho u baxaan doonayana leeynaya waa adeegayaal ha is ogaadaan ambiyana is ogaanayeen shaydaanka u adeegaya oo aqoon darrada u adeegaya oo wixii wax baran lahaa ee iftiinka u soo bixi lahaa ka soo taxaabaya kana soo jiidaya oo meydkooda gudcurka iyo mugdiga la galay sida ogtahay walaalkayow inaan ku sheego maaha iftiinka la sheegaya maaha meel siraadan oo la u baxay waa aqoonta gudcurka la sheegayana maaha meel leedkii laga baxtiyay waa aqoon la'aanta quraanka jaliilku wuxuu yiraahdaa يا بني آدم لقد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى أبو حامد الغزالي مركو كبر دقي تفسير كآيات وحيني لباسا يواري سوءاتكم أو أهبقات عوردين أسطرة ما هدر يدوغا بحرطان أو عوردين قرية هو أقونت ويقفك أنا قون لهيني مريم برح كل يسكو حرنا وقف قاون ريشكنا وإيمانك ولباس التقوى وحياة إيه حشوتك مركا إيمانكي إيه حياة إيه حشوتك إيه هبقاتك أقونت هذا إلهي كحيا يبيو مد قوانو النقل ميسيدي مد قوانو أملي ولبسيته ويسلتو حياة وبن آدم قدوني دو دلال احتاجا ودشا كل يريا النقل نيسا سيدا تايم حمر ماتا كارك